gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray in uu khilaaf u dhaxeeyo madaxda sarsare ee maamulkaasi hase yeeshee waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loo eego sida uu shaqeeyaan madaxda maamulkaasi taas oo ay tahay buu yiri in madaxda sarsare ay sinaadaan waxa uu sheegay inay tahay in dib loo eego dastuurka lagu dhisay maamulkaasi si loo xaqiijiyo awood qaybsiga uu maamulkaasi ku dhisan yahay arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli uu soo baxay khilaaf la sheegay in uu dhaxeeyo madaxda sarsare ee maamulkaasi haddaba umurtaasi waxa inooga waramay isla gudoomiyaha Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed Dhoobo Daareed oo u waramay wariyahayaga Garowe Axmed Xawli sideedaba wararka suuqa yaala oo la wareegaya iyo wararka yaala golaha way kala duwan yihiin annaguna waxaan ku shaqeynaa waa wararka golaha yaala mas'uuliyiin baan nahay dalka waan u dhaaranay haday jirtay arintaasi waa saakaad arki lahayd kaagana muuqan kumana ay jirinin mid daymo way leedahay 3 kursi baa ugu sareeya wadanka waxa weeye waa gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ku-xigeenka inay isku mid yihiin wax sax weey waana arin iyada laftigeedu dib u eegis u baahan xataa u baahan dhisidii Puntland wax ku salaysan taaman doonta waxani waa awood qaybsi awooduna ma kala hooseyso hadii kuraasta qaybi hooseyso qaybina koreyso waa oran karaa dee codadkooduna waa kala koreyn karaa laakiin dastuurkana cid baa qortay waxii min Allah yana ma ahayn waa arin taaban doonta wax qaybsigii iyo baawar qaybsigii Puntland dadkii dhistay baan ka wada hadli doona laakiin ma aha arin aniguna aan wax ku xasaradeynayo goluhuna wax ku xasaradeynayo waa xaq kuraastu inay ama isku mid noqoto oo hoos la isugu keeno ama kor la isugu geeyo ma jiro kursi wax kaga duwani waana awood qaybsi waxaan power sharing bahay taasi eegis bay leedahay waxa jirtay inaad baarlamaanka xilligaas oo kale dastuurka ansixinaya aad ka mid ahayd markaas kuma muuqan miya maanta aad gudoomiye tahay ku muuqata anigu maalinka gudoomiyana ma ahayn xilligii horeeya baarlamaankan soo galay bayna ahayd baarlamaan wuxuu yahay iyo wax kuraastu kala tahay midna ma fahamsanayn eedna taa kuma yeelan karo laakiin maanta qof kasta oo Puntland jooga way u muuqataa ama wax soo bixi doonta in kuraastu kala hooseyso iyo dadka powerka qaybsaday inay kala hooseeyaan ama wax soo bixi doonta in powerka loo sameeyahay isku mid ay noqdaan dhanka kale waxa jira in la leeyahay madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka waa islahayaan arrintaas oo kale gudoomiye ma jirta maya ma jirto waxay sahaynana moogi wax ceeba oo aniga madaxweynaha dhex yaalana moogi meel aan isku qabanayna ma jirto way dhacdaa marmar dadku inay wax kala fahmaan way dhacdaa afkaaraha in lagu kala duwanaado laakiin anigu ma ogi wax sayna oo aniga madaxweynaha naga dhaxaya wax dhibaato oo dhex taalana ma ogi isna inuu og yahay u malaynay waxay leeyihiin gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu farta wadnaha u kaga hayaa in uu xilkiisa uu waayo mooshin laga keeno sidaas la sheegaya wadnaha farta kuma hayo kursigani wuxuu ahaa hadaf aan lahaa oo aan xaqiijiyay laba jeer hore aan u tartamay dadka waxaan baray siyaasadda in loo sabro mar saddexaadkiina waan ku guuleystay marna ma caajisineed xubna iguma iman waan jeclaa hadafkaygana xaqiijiyo waana xaqiijiyay laakiin aad uma caashiqsanay inaan kursiga aan ku adaygo oo iraado kursigaan fadhiyaya laakiin waxaan aaminsanahay ummadda mas'uuliyaddan u qaaday inaan ugu shaqeeyo kuna matalo kursigaa soo haray kursigu maktuub cinda Ilaahi weeye intaan fadhiyo nin ila jecel iyo nin la necab waxa weeye haddii golahaygu ay u arkaan inaanan hogaamin karin ama shaqada ay madeen aanan ku filayn iyaga ii sheegi karayo aan cod bay qaad baan ka soo degaya xagga dambaana fadhiisanaya wali waa ku sheegaya laakiin iyada mid ma yeeri doono goluhuna ma yeeri doono aniguna ma yeeri doono in golaha cid ka baxsani oo ama suuqyada joogta ama maslaxado kale iyo dana kale Puntland inay iyadu golaha iyaga ay khalkhal soo gariso oo faraha la soo gasho kama yeeri doono لكن قدومي dadka ku naqdiyo waxay leeyihiin gudoomiyuhu madaxweynaha oo kale oo barbaryaacaya oo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya team kale isku dhahoonadeen buu ku xiran yahay marka arintaas ka war aniga iyo madaxweynaha isma dhinacyaaci karo madaxweynaha madaxweynihii dalka qof ahaan isaga ugu sarreeya dalka hay'adahan hay'adan odayga waxa ay u sarreeyso baarlamaanka hay'adaha dawladda shaqooyinkayaguna dastuurka kale calaamadiyay iyo xeeroosaadka golaha iyaga mana jirto shaqo madaxweynuhu leeyahay anigu waan hayaa heshiisaan soo galay ma jirto kuwa soo saxay ma jirto arrimo fulintu ay leedahay ma jirto waxa soo hadhay Soomaaliya qarannimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed waa wixii Puntland loo dhisay mana aaminsan madaxweynuhu diiday aniguna ma diidanay haddii aan ku sheegaya waan ogolahay midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed wax gaar anaga cid nooga dhaxayaana ma jirto Puntland waa hooyadii dawladda federaalka ah wax kale oo hadda jiraan ogahayna ma jirto xukuumadda kala xiriirka u jira qodobo kamid ah waxay dhaheen kala shaqeeymaan sida doorashooyinka arrimaha dastuurka waxa soo dhan ayay sheegtay marka adiga kuma muuqato miyaa waxa ku sheegaya xiriir hotel iskama goyn karo dalku waa tashi
waana talada waa la wadaagaa dowladdu xiriir ma goyn laakiin waxyaaba ay ku kala duwan yihiin ama aan ku kala duwannahay afkaar ahaan way jiraan marka waxa weeye wixii afkaaraha ay ku kala duwanaadaanna waa caadi maamulada kaleba kuway ku kala duwan yihiin iyo dowladda weyne laakiin dalkani nidaam buu leeyahay qarannimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed waa muqaddas tan Puntland waa taan u dhaartay waa muqaddas marka wax way xiriir la gooyay oo ay Soomaaliya iyo Puntland ku kala go'an yihiin ma jiro wax وتحكاس وحوها قدوميها برلمان كبنتلان عبد الحكيم محمد أحمد روبداريد ورمي وريها يجا أحمد عويل